بسم الله الرحمن الرحيم qaybtan ugu dambaysa cashirka python waxaan ku baran doonaa polymorphism wax la yiraahdo anagoo markaas la isticmaalayna marna class marna lagu adeegsanayna functions ugu horreyn sida caadiga waxaan soo kiciyay Visual Studio Code sidoo kale waxaan soo kiciyay folderkeena hore u isticmaali jirnay waxaan sameynayaa file cusub waxaan u bixinayaa markaas magacayaan iska bixinayaa waxaan iska leeyahay iska soo gaabinayaa poly.py waxaa leeyahay kadib inta ayaa leeyahay intaa markaas sameeyo haddii cabirka soo weynay anigoo qabanaya control plus loo mar sida caadigeena waxaan sameynaynaa meeshaan titlekeena caadiga ayaan sameynayaa with a class ayaan ka bilaabeynaa markaasi with a class ayaan ka bilaabeynaa waxaan leenahay markaasi class ayaa abuuranaa classkan waxaan u bixinaynaa cat ayaa u bixinaynaa catku waxaan qaadanayaa laba method ayaan gudihiisa ku dhex abuuri doonaa method koowaad waxaa leenahay waxaan u bixinaynaa colorkan mar walba wuxuu qaataa self ayuu ka bilaabanayaa wuxuu soo printer gareynayaa wax iska sahlan oo ah markaasi white color function method labaad uu qaadanaya asigana waxaa lagu magacaabaa legs ayaa lagu magacaabaa self ayaan leeyahay kadibna waxaa leeyahay printy waxaa soo printer gareynayaa for legs aragtan waxaa sameeyay class normal ayaan sameeyay classkaas wuxuu leeyahay ilaa laba method labada method shaqadoodu waxay tahay kaliya inay soo printer gareeyaan sidaas si lamid waxaan sameynayaa markaas class kaleeta anigoo koobiyeynaya intaaba class kaleeta waxaan u bixinayaa asina human ayaa u bixinayaa isagana sidoo kale waxaa leeyahay colorskiis waxaan ku sheegayaa colorka waxaa iska leeyahay black ka kooban yahay waxaan kaloo sheegayaa markaas uu qaadanayaa brown iyo white isagana legskiis waxaa ku samey waxaan leeyahay ilaa laba ayuu ka kooban yahay intaa markaas sameeyo polymorphismkan marka shaqadu qabanaya maxay tahay class markii la taagan yahay oo ay isleeyihiin maxaa leeyahay methodska oo ku dhex qoran class gudihiisna ay isleeyihiin si sahlan waxaan sameyn karnaa anagoo leenahay markaas class c oo waxaan usoo qaadanaynaa cat waxaan usoo gaabinaynaa function classka lagu magacaabo cat c ayaan u qaadanaynaa sidoo kaleeta agent waxaan u qaadanaynaa markaasi human anigoo objectaas abuurayna intaa markaas sameyno maadaama labadan classba ay leeyihiin laba method oo isku mid ah oo markaasi isku magac ah balse ay ku kala duwan oo kaliya qoraalka ku dhex qoran gudihiisa sidee markaasi usoo printer garey karaa hal mar anigoo markaas soo gaabinayo waan dhihi karaa cat.color haddana cat.can waqti ay qaadanaysaa ilaa 4 line ay noqonaysaa balse sidee usoo gaabin karaa waxaan usoo gaabin karaa anoo isticmaali wax lagu magacaabo lubin hore waxaan usoo baranay lubin ayaa usoo baranay waxaa leenahay markaasi for animal in ranges maxaa leenahay markaasi waa labadan class ranges ay abuuraya midka koowaad oo lagu magacaabo c iyo kan labaad oo markaasi ah h ah kadibna intaa markaas sameeyo waxaa leeyahay si sahlan waxaan soo qaadanayaa animalkan oo meeshaan ku abuuray animal kadib dot markaa waxaa ii soo baxay laba shay aragtaan color iyo lake color haddii aan dhaho midka labaad waxaan sameynayaa haddana mar kaleeta animal dot isna waxaa leeyahay lake isna lake ayaa leeyahay intaa markaan sameeyo maxaa dhacay maxaan soo printer gareysmaya aan isla aragno intaa markaan ran dhahno saagtaan waxaa noo soo baxay 40 shay ayaa meeshaas noogu soo baxay wuxuu sameynayaa lubin ayuu sameynayaa marka hore waxaa la fiinaa sidaasna waa cat maxaa kusoo dhex jiro ilaa color iyo leg ayaa ku jirto marna waxaa la fiinaa colorkeeda ayaa lasoo bandhigayaa oo white color ah marna waxaa lasoo bandhigayaa legskeeda markaas ah for legs ah haddana mar kale htaas ayaa lubinka lagu sameynayaa ayadana waxaa la fiirinayaa htaas maadaama intay u taagan tahay classkaas human waxaa soo print gareynaya colorka kadib waxaa lasoo print gareynayaa kadib legska qaabkaas ayaa lagu dabaqi karaa markaasi polymorphismka classka markii la isticmaalayo sidee markaasi lala isticmaali karaa lagu magacaabo iyadana function ahaan taana iyadana waa si sahlan tahay waxaan sameynayaa markaasi functionka ayaa abuurayaa markaa function ayaa la isticmaalaynaa waxaa leenahay functionkan normal wuxuu soo printing ayuu sameynaya oo keliya wax weyn ma qabanayo gudihiis waxaa ku jira function oo built-in functionska ah hore aan usoo baranay lengthiga ah wuxuu soo print gareynayaa Soomaali intaan hadda markaa sameey
iska tir inta markaas maxaa dhacay marka dhaho waxay soo baxay 7 ay isa sababtoo ah wuxuu sameynaa lengthiga oo wuxuu sameynaa watrina correct waa s oo 1 2 3 4 5 6 7 majida 7 qaabkaas ay u tiriyay qaabkaas ay u soo bandhigaya anagoo tan haddana length isticmaalayno mar kaleeta aan aragno print markaa dhahno waxay sheegaya markaas length ayaa leeyahay kadibna markaan meeshii aan qaabkan usoo print gareyn lahay waxaan soo bandhigaa list ayaa leeyahay listii koowaad waxaa leeyahay waa python waxaa leeyahay python and javascript iyo waxaa leeyahay php okay tanna markaa dhacdo maxaa dhacayo tanna markaan dhahno sa aragtaa waxaa noo soo baxay waxaa noo soo baxay free ayaa noo soo sababtoo ah markii listi lengthigeed la fiirinayo waxaa la xisaabinaya ama la tirinaya itemska ku jira waxaa ku jira meeshan 3 item python 1 item ah javascript iyo php oo markaas isku noqonaya 3 item qaabkaas ay loo soo bandhigay ee looma soo tirinaya markaasi hal p qaabkaas looma soo tirinaya markaas midda saddexaad oo polymorphismka functions ayaan waxaan ku arki karnaa printing aynu isticmaalayno laakiin markaan length markaa dhahno waxaa adeegsan doonaa lagu magacaabo dictionary oo hore usoo baranay waxaa leeyahay nameka waxaa leeyahay magac ayaan isaga siinaya sidoo kaleeta waxaan sameynaya address waxaa leeyahay isigana okay intaa markaan sameeyo tan ran markaa dhan maxaa dhacayo tan waa soo baran waxaa la soo xisaabiyey Soomaali hal ayaa la xisaabiyey meeshaasi xarf ayaa markaas la xisaabiyey python list maadaama ay tahay waxaa la soo qabtay item ayaa la xisaabiyey balse dictionary marka ta qaabkee la xisaabiyaa ran markaa dhan waxaa noo soo baxay meeshaas 2 ayaa noo soo baxday sababtoo ah wuxuu fiirinaya wuxuu isku darayaa markaas keyska oo kaliya ayuu xisaab meeqa key ayaa meeshan ku jirto kan waxaa loo magacaabaa key kan waxaa loo magacaabaa key ayaa loo magacaabaa sidaas daraadeed markaasi wuxuu noo xisaabiyo oo kaliya keyska ayuu meeshan kasoo qabanaa ama value ayuu kasoo qaban karaan marka intaana isku noqonayso qayb iyo intaana isku noqonayso qayb kale isku noqonaysa sidaas daraadeed waxaa kusoo bartagayna markaasi 2 qaabkaas ayaa markaasi polymorphismka lagu dabaqi karaa adigoo isticmaalay class ama function fadlan subscribe share comment inta samee cashirkan python course dhan inta ayuu ku egyahay qaybta ugu dambeysay waaye insha Allah weekend gudihiis maxaa bilaaw doonaa Django ayaa bilaaw doonaa